shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi bay talada xisbigu garabtaa la nidiidiya nin doonaba shirar xisbigana waan ka qayb galaa laakiin de malaha xanta madaxweynaha hore inaan ka qayb galaa liigu kari waayay oo intaas waa argagixi maalintii dhaweyta dhacay unba fasiciisi wali sii socdaayo qiyaamaha luqmaanow argagaxa horta ka horeey marka argagixi bay saaxiibadii qaar ka midii ay ku jiraan warqadda maanta soo baxdayna taanu culays uma arko bulshadii xisbi qaran ka dhigtayba banaanka ka joogta anna inaan iyaga la joogo damiirkayga ay siiyay waxa uu sheegay Cabdinaasir Buuni afhayeenka xisbigaasi wasiirka hore wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland in xubinimada xisbiga kulmiye laga saaray Cabdinaasir Buuni ugu hore kusoo dhaw dirana TV sidoo aragtaa xisbiga kulmiye oo sheegay inuu kala noqdo xubinimada xisbigaas aad iyo aad baad u mahadsan tahay wariyaha weyn Luqmaan Maxamed Faarax adiga warbaahintaada way soo dhaweynaya maalin wanaagsan runtii xisbigu waxa uu hadda mar saddexaad uu xisbi qaran noqday doorashadii 2024 November 13keegii isku sidkanayd ee uu dalka ka qabtay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland shanaad mudane Muuse Biixi Cabdi xisbiga kulmiyana uu mar saddexaad ugu soo gudbay marxalad xisbinimo taasoo nasiib wanaag ah xisbiguna maanta xisbi qaran uu yahay muddo hadda 12 biloodana uu u bilaabantay shahaadadii 10 sano xisbiga waxa ku waajibaysay inuu qabsado shirweynihiisii oo sharciyan jooga iyo hoggaanka oo iyagana waqtigii ka dhamaaday waana tii guddida fulintu ay ku soo celisay ee la yiri shirkiina uu jooga waxaan soo qortayna sharci maaha marka dawaana mas'uuliyadana waa la kala leeyahay waa kii taladii odaytinimo iyo tala qaran iyo tala xisbinimada madaxweynihii shanaad ka soo jeediyay arrimahan marka nimankan odayaasha xisbiga hadda sii jooga waa rag inta badan aanu soo wada shaqaynay rag badan aanu sii wada joogi doono markuu xisbigu xalaal noqdo hadii la yiraahdo oo qiyam iyo sharaf leh oo mabaadiida qaarkood aanu si weyn uga wada soconno ananu soognahay arinta kale aanu hirgelinayna ay tahay in xisbigu helo inuu shirkiisii qabsado hoggaan ku fadhiya codka xisbigu soo baxo oo tamaanta raaliga ay ka yihiin dadku warqadda maanta soo baxdayna taanu culays uma arko bulshadii xisbi qaran ka dhigtayba banaanka ka joogta anna inaan iyaga la joogo damiirkayga ay siiyay oo siyaasado kale iyo wax kale oo meesha ka dhex socda aan qayb ka noqonin marka dadkii xisbiga xisbi ka dhigay ayaa banaanka ka joogaba marka maxaad ula jeedaa dadkaas waad garanaysaa oo dadka laga meermeerayo xisbiga inay hoggaankiisa qabtaan oo halkeeya marka waa deegaanadii aynu xusnay ee xisbi qaran ka dhigay codadkiisii marka maanta la eego marka xisbigu waa ka weey marka ragana joogana ragana saaxiibanahay sharaf iyo qiimo iyo qadarin aan u hayo hawsha xisbigu baa lagu jiraa iyagana maanta in jawaabti sharciyadeed baa laga sugayaa ay arintaasi kaga jawaabayeen iyo shirkii xisbiga wana la xil gudanayaa lama daawanayo oo gacmaha lagama laabanayo oo la badbaadinaya xisbiga hadii la yiraahdo marka waa argagixi maalintii dhaweyta dhacay unba fasiciisi wali sii socdaayo qiyaamaha luqmaanow argagaxa horta ka horeey marka argagixi bay saaxiibadii qaar ka midii ay ku jiraan Cabdinaasir waad bahsan tahay waxay kugu eedeeyeen inaad ka hor timid go'aanada xisbiga gudoomiyaha xisbiga dhowr jeer kula hadlay oo aad maqli weyday arrimo kala hadlay sidoo kale aad Hargeysa jooga shirx xisbiga laha ka soo qayb gal weyday muddo 4 bilood xeerarka xisbiga jabisay waxyaabo xisbiga khilaafsan aad ku kacayso maxaad ka hornahay horta de shirar xisbiga ah intooda badan waan ka qayb galay waxaan ka qayb galay shirarka lama dafiro maalin dhawto gudoomiyaha ku meel gaarkii hadlayay wuxuu yiri xisbiga loogama taliyo guriga madaxweynaha hore haddana waad ogtiin warbaahintu inay soo gelisay shirarkii fulinta qayb ka mid ah inay ka dhacday markaad cidis qabataan intaad isku qabateen baa lagu eekaadaa la isma dafiro shirarka xisbiga dib baa loo gali karaa warbaahinta xisbiga
inta badan dee waan joogay eeg arrintani waxay salka ku haysaa waxaan socda iyo xisbiga sida la rabo in fadhiid looga dhiga iyo in meel lagu shaqaysta laga dhiga iyo in meel qadaraasyo lagu raadsada laga dhiga iyo waxaan oo dhan dee damiirkaygu aniga ima siinayo nifaaquna ma fiicno qof muslina haddaad tahay anuu xisbi mucaarada oo xukuumaddiisii laga hela la joogaa la siyaasada odaygii xisbiga ugu weynaa oo taladii xisbiguna maanta garab taallo madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda ah talada xalaashiina halkaa ay taallo taasaan anigu la socdaa lama socdo madaxweynihii shanaad ee jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi bay talada xisbigu garab taallaa nin diidiya nin doonaba shirar xisbigana waan ka qayb galaa laakiin dee malaha xanta madaxweynehayagii hore inaan ka qayb gala laygu kari waaye oo intaasun wey waxa lagu weedaya inaad qabyaalad iyo cunfi waxyaaba noocaasoo kale aad kula kala dhex jirto iyo qaybin xisbiga gudihiisa maxaad ka leedahay waa qodobka ay yidhaahdeen waxaad sheegtay waxaad dhisaysaa murashax ayaad sheegtay aan ahayn murashax aan xisbiga ahayn waanan ka jawaabo hadalkaa ninkaan ugu jawaabayay buur madow buu ahaa horeyna waanu sheegay oo taladii ceelafweyd baa maanta kulmiye ka dhex socota waana taa qodobka ay ku soo qoreen ninkaan u jawaabayana buur madow wuxuu ahaa yidhi reer awdal madaxweyne somalilan ka noqon maayana ku-xigeenkooga ha ahaadaan marka maanta waan ku faraxsanahay qodobadan ay soo saareen inay ka mid tahay buur madow baad u jawaabtay marka waa laysku jawaabayaa waxaa jiraa laga hadlayaa runtaa laysku sheegayaa jamhuuriyaddanna taariikh badan baanu ku leenahay dhismaheega iyo waxeegoo dhan marka ninka maanta raba inuu xisbigiin adeerkiiya ugu hiiliyo oo uu soo saaro kulmiyana halkan xaajiga uu fadhiyo fadhiid laga dhigo siyaasadda socotaa waa taa weeye waana laisfahmayaa laakiin halkay ka suurta galaysaa weeye su-aasha taalla waxa weeye halkay ka suurta galaysaa kulmiye maanta kama suurta galayso waxaad jeceshiin kaah bay ka suurta galaysaa waa loogu celinaya waana loo sheegaya waay iminka adigu mar haddii la yidhi xubnimadu waa laga saaray sidoo kale khilaafkani jiro xaruntii xisbiga iyagu joogaan shaambadii xisbiga hayaan idinka maxaa idii talaa waxaa noo tala ah wixii u tala noqday xukunka maanta xisbiga qabtay ay shacbi ku abaabuleen ee ay doorasho ku heleen markaa dadkii xisbigu haddii shaabadii iyo aqal yaroo halkan ku yaalla laga haysto codkooga way la soo bixi doonaan xuquuqaha dastuurku siiyeyna shaariciyada ula soo bixi doonaan waana layskugu iman doonaa qolka xisbiga aqlabiyadda waxa laleeyahay maxamed kahin bay la joogtaa madaxweyne muuse biixina in kooban baad kula joogtaan garabkiisa maxaad ka odhan dee aqlabiyadi hadday la joogto maxay maalinba warqad u soo saarayaan maxaa rafadkan iyo fasacan iyo argagaxan ku riday marka waxaa looga baahan yahay inay u jawaabaan guddidii diiwaangelinta waxna geeyaan annaguna howlahaasi guddi baana u xil saarnay isha ku haysa sharcinimadeeda kana jawaabta mar allaale markay hawshaasi dhammaatay haddii ilahay ugu dambeyntii maxaad odhan lahay waxaan odhan lahaa dadka xisbigood mahadsantihiin ragga maanta xisbigaa kulmiye jooga ama guddoomiyaha jooga kumeelgaadhka ah afkiisa lagama hayo waxaan u mahadnaqayaa dadkii xisbiga soo saaray weli lagama hayo anna waxaan u mahadnaqaynaa dadkii xisbiga soo saaray dadkii xisbi qaran ka dhigay labisyadan iyo suudhashan iyo xisbiga maalin walba subax walba loo xidhanayo dad baa soo saaray oo safka u galay oo u dhididay markaa dadka mar walba waxaanu leenahay madaxaad noo saarantihiin waad mahadsantihiin karaamadiinna iyo sharaftiinnii baanu huwannahay xuquuqdiinna waanu doonaynaa sharaftiinna iyo cisigiinna waanu ka shaqaynaynaa wax kasta oo lid ku ah iyo siyaasad kasta oo la doonayo in xisbiga kulmiye waxa weeyaan lagu fadhiid lagaga yeelo annagaa nool marka aad iyo aad baad umahadsan haddii iminka iyagu shirweynihii ay qaban waayeen wakhtigiisii garabkiinu ma qabanaysaa sharcigaa qabanaya garabba ma qabanayo sharcigaa qabanaya soo sharciguma soo celin maalintii dhaweyta sharcigaa qabanaya waana tii farxaan aadan hayba maalintii hore sheegay waxaanoo wareera waxa keenay buuhi ninka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa siyaasigaa weyn sida sharaftalena dee xisbiga uga insixaabay wuxuu yidhi qodobka ah hogaanka ama guddoomiyaha xisbiga waxaa noqonaya oo lagu salaynayaa ergada shirweynaha codkii u dambeeyay doorashada madaxtooyada nuucuu u dhacay unba waxaanoo wareeri ka yimiday buuri waan uga mahadnaqaya dad badanoo ku qoonsadayna waan arkayay laakiin dee qofka siyaasigii cidda aad is haysaan lagalama masuugo waxa sharcigu uu yahay ama ay taladu tahay laakiin dee inta kale aragtid wanaanshihiinna waad ku khilaafi kartaa laakiin waxa qoran lagama been sheego farxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa
shacbigana waxaan leeyahay waxa laga galgalanayaa waa codkii siduu u dhacay in lagu yimaado hogaanka ragga maanta jooga iyo kuwa kaloo banaanka ka joogaana xaq bay u leeyihiin inay tartamaan dad badan oo qiimo leh xisbiga ku jira hogaankiisa fulintiisa golihiisa dhexana way jiraan inuu saaxiibana wadanahay ixtiraam iyo sharaf baa naga dhaxaysa karaamiya waxa naga dhaxaysa iyo saaxiibtinimo marka raggu isku maqan yahay meel kastuu joogaba laakiin taladu waxa weeye aniga qayb kama noqonaynin meeshaasoo sheeko iyo lagu hayo iyo humaag iyo in xukuumadda la hambalyeeyo iyo in miisaaniyadda xukuumadda la idhaa hidhkaa u bedela kaa abaarta kaa kale casuumadaha ka bedela kaa kale kaa laga sameeya maxaa ka galay waa xisbi mucaarade ma hawlooga qabsadaan markaa mashararka noocaasan ka qayb geli lahaa marka aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa shacbiga waxaan leeyahay somalilan guulaysta qarannimadiina la ilaashada hawshana nin walba intuu ku leeyahay ha qaato waxaa jirta dad badanna ay hadal hayaan oo leeyihin maxamed kaahin iyo muuse biixi oo muddo saaxiib ahaa cabdinaasir baa isku diray ama labadii oday madaxa isu geliyey maxaad ka horlahay talabaadna waxa soo baxay warar sheegay in madaxweyne ciro iyo gudoomiye maxamed kaahin ay hel habeen ka hor is arkeen wax xogaa miyaad ka haysan idigu dee horta su-aasha koowaad ee hore madaxweyne muuse aba ka jawaabay oo yidhi rag maanta da-daan isku khilaafa ma nihin sidii milgaha lahayd iyo sharafka lahayd u hadlayna waa kii dee somalilan oo dhan ka markhaati furtay waana dee hadal madaxweyne uu ka hadli lahaa unbay hayd taana madaxweynuhu waa ku sharfan yahay taas waa taa tan kulanka waanu maqalay in markii madaxweyne muuse hadlay dee wareerkii nin walba ula galay inuu meel tago kulankaana waanu maqalay laakiin anigoon xaqiijinaynin fariin uman madaxweyne halkan uga diraya jamhuuriyadda somalilan mudane doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi waxaan leeyahay mudane madaxweynihii kaa horeeya talada kugu wareejiyey sifooyinka uu lahaa waxaa ka mid a inuu dhaartii dalka uu u maray uu fuliyo waana ta keentay qarankan wax badani inay ugu hagaagaan oo ah sharciyadda in la fuliyo sharcigana la ixtiraamo wax doorashooyin oo madaxweynaha kaa horeeya uu faragelin jiray ma jirto xisbiyo uu faragelin jirayna ma jirto marka wixii xisbiyada ka dhex socda qaanuunka u daa wixii lagula yimaado dee sharci baa dalka u yaalla adiga inta kuu taalla waa inta waana inta adiga madaxweynihii hore aad ku kala badbaadaysaan iyo dadkii xisbigan adiguna ay kuu noqonaysaa inaad shaqayn karto oo dee aanay fawdo dalka ka bilaabmin marka taana intaasaan leeyahay cidda u tagtayna waxaan leeyahay war dee sharcinimada iyo waxa layniga rabo un ku dhaqmo oo dee madaxweynaha ka yareeya saxmadda iyo ballan deg degaana u baahannahay aad iyo aad baa umahadsantihi aad buu mahadsan yahay wasiir hore cabdinaasir buni walaal jazaaka allahu khayr